السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. FC برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو. kusoo dhawaada muuqaalkan oo kaga hadli doono kulanka faraha lagaga gubtay ee El Clasico inkastoo Real Madrid iyo Barcelona doorkan aanay ku hubaysneen ciyaartoydoodii waaweyned ee ku soo maamuleen Yurub iyo caalamka oo idil oo doorkan ay garoonka isku dhexriyeen doonaan Ansu Fati iyo Vinicius Junior haddana taasi meesha ka saari mayso in kulankani noqdo ka ugu daawashada badan la dunida iyadoo ay madaxa isla gali doonaan laba kooxood oo qaaday isu geyn 60 horyaal iyo 18 Champions League maalinta ay fooda isla galayaan u soo xareeyay xidhiidhka kubadda cagta Isbaanishka malaayiin dollar iyadoo sidoo kale aan meesha ka saarin in Real iyo Barca ahaadaan labada kooxood ee adduunka ugu taageerayaasha badan leh waxaana lagu qiyaasaa faniska kubadda cagta daawada 3.5 bilyan oo ruux waxaana u badan tahay in dadka intaas tirada leeg mid waliba labadan kooxood mid ahaan la safan yahay dabcan aniga mooyaane labadan kooxood midna ma taageero taasi oo ka dhigaysa xogtan halkan idinku soo tabin doona inay noqoto midaan dhan u janjeerin oo dhexdhexaad ah inagoo videogan isbarbardhig ku samayn doona Warsaw iyo naataha kubadda cagta adigoo muuqaalkan gabagabadiisana ku ogaan doona labada quwadood ee kubadda cagta ugu weyn midka laga reyn doono waa ayse the best team Real iyo Barca midkee wanaagsan الله على الشوط نمشي كرة من ميسي والهدف جول وينك الجول الثاني يا رونالدو intaana mise laakiin muuqaalka bilaabay fadlan haddii aad kanalka ku cusub tahay ku soo biir adigoo subscribe taabanaya hana ilaabin inaad gambalelka furato si uu ku soo gaaro muuqaal waliba markaanu sidaa u soo gelino videoga kan ahna like saar si uu gaaro dadka ugu badan mahadsanid Real Madrid iyo Barcelona si guud waxay iskaga hor yimaadeen 297 kulan iyadoo 246 kulan ay ahaayeen kulamo rasmi ah 33 kulan ay ahaayeen kulamo saaxiibtinimo su'aashu waxa weeye midkee guul badan iga hoo jawaabta ay ku horeyna kulamada rasmiga ah ee Barca waxay garaacday Real 96 jeer halka Realna adkaatay 98 goor Barca Real kulamada rasmiga ah markii uu eegayna waxay berberayeen 52 kulan ciyaaraha saaxiibtinimo ee 33 match bay noqotay Barcelona waxay adkaatay 19 jeer halka Real ay guuleysatay kaliya 4 jeer iyagoo berberayay 10 goor haddaynu si guud u eegno Real iyo Barcelona ayaa guulo badan iyadoo 115 jeer ka adkaatay Real Madrid halka Los Blancos ay Blaugrana ka adkaatay 102 jeer kulanka laakiin bari labadan kooxood ku dhex mari doona garoonka Camp Nou waxa uu ka tirsan yahay horyaalka Isbaanishka haddii aan isba dhigno midkooda guulaha badan leh horyaalka Real Madrid ayaa ka adkaatay Barcelona 76 jeer halka ay Barcelona adkaatay 72 jeer Copa del Rey ama koobka boqorka Barcelona ayaa adkaatay 15 jeer halka Real ay guuleysatay oo ay Barcelona afka ciidda u dartay 12 goor waxaad arkaysaa labadan kooxood sida isku daba tumayaan oo haddii mid ku adkaato horyaalka intan kalena kaga adkaanaysa koobka boqorka haddii laakiin aynu eegno inta kulan ee labadan kooxood iskaga hor yimaadeen horyaalada Yurub ee Champions League waxa ay fooda istareen 8 goor iyaga oo wada ciyaaray afartii season ee kala ahaa 1960 1961 2002 iyo semifinalkii 2011 sideeda kulan Real Madrid ayaa adkaatay 3 jeer halka Barcelona ay ka guuleystay Real tiraba 2 jeer 3 jeerna barbara ayaa la galay waxaase ka sii muhiimsan afarta xilli ciyaareed labadan kooxood mid waliba ta kale laba season ayaa ka reebtay koobka Champions League Real ayaa adkaatay 1960 iyo 2002 halka Barcelona Real Madrid ay ka reebtay koobka sanadii 1960 waxaana Barcelona noqotay kooxdii ugu horeysay ee Real Madrid Champions League ka reebta iyadoo uu agaas Real Madrid ay awood sheegatay kooxaha Yurub oo dhan iyadoo 5 sano oo xiriir qaadisay idhaga weynaha laga soo bilaabo sanadii 1956 ilaa sanadii 1960 iyadoo sidoo kale Barcelona mar kale Real Madrid ka reebtay Champions League sanadii 2011 markaas oo Pep Guardiola la qaaday kooxdan Champions League waxaad u jeedaa mar kale sida ay labadan kooxood isugu guulo dhow yihiin bal meel aynu iska dhigno kulanada foolka ah ee labadan
labadan kooxood iskaga hor yimaadeen markan aynu isbarbardhigno koobabka ay mid waliba qaaday. haddii aynu ku horeyno horyaalka Isbaanishka ee La Liga, Real Madrid waxay ku guuleystay 34 jeer halka ay Barcelona qaaday 26 jeer. ma rumaysanaysa laakiin Barcelona oo jirta 122 sano inay 90 sano qaaday 9 liigo kaliya halka 31 sano u dambeeyay ay ku guuleysatay 16 horyaal halka Real Madridna 34 horyaal ay qaaday ay u qaybsan yihiin 119 sano ay jirtay. iyadoo labadan kooxood la hor aasaasay Barcelona waxaana dhidbada loo taagay Blaugrana sanadii 1899 halka Real Madridna ay dunida timid sanadii 1902. haddii aynu markaan eegno koobka boqorka ee Copa del Rey, Real Madrid waxay ku guuleystay tiraba 19 jeer halka ay Barcelona qaaday 30 goor. Champions League ay noqotay Real Madrid yaa ku dhacaya waxay haysataa 13 koob ugu koob badan kooxaha Yurub oo idil halka Barcelona 28 sano u dambeeyay ay qaaday 5 Champions League ay haysato taasoo ku cadeynaysa in Barcelona ay ku jirtay waqtigeedii ugu wanaagsanaa 30 sano u dambeeyay. haddii laakiin markan aynu eegno abaalmarinaha gaarka ee ku guuleysteen ciyaartooyda oo ciyaarta labadan kooxood inagoo ka soo qaadan doona 4 abaalmarinood ee ugu muhiimsan oo kala ah Ballon d'Or ama kubadda dahabka ay bixisay jariirada France Football, abaalmarinta FIFA ciyaartooyga sanadka ee The Best kabta dahabka ee Europe, 4 abaalmarinta Pichichi ee kabta dahabka ee ciyaartooyga ugu goolasho badan leh horyaalka Isbaanishka. haddaynu ku horeyno abaalmarinta Ballon d'Or ciyaartooyda Real Madrid waxay ku guuleysteen tiraba 12 jeer halka kuwa Barcelona ay qaadeen 12 goor halka ay isdheerihiina waxa koos gareysay kubadda dahabka ee u dambeysay ee uu qaaday Lionel Messi. abaalmarinta FIFA ciyaartooyga sanadka ee sanadii 2016 loo bixiyay magaca The Best ciyaartooyda Barcelona waxay qaadeen tiraba 7 jeer. Real Madridna sidaas la mid ah iyana waxay ku guuleysteen 7 jeer. waxay noqotay kabta dahabka ee la siiyay ciyaartooyga ugu goolasho badan la Yurub season-ka. Real Madrid waxay ku guuleysteen ciyaartooydoodu 4 jeer halka Barcelona ay ku guuleysteen 8 jeer. halka iyada Barcelona ayaa ku adkaatay. haddii laakiin aynu eegno abaalmarinta Pichichi ciyaartooyda Real Madrid waxay ku guuleysteen tiraba 27 jeer halka ay Barcelona ciyaartooydeedu ku guuleysteen 19 goor. abaalmarinta tanana Real ba ku adkaatay. haddii aynu markan u guud galno recordiska labadan kooxood waxaanu ku bilaabi doonaa ciyaartooyga ugu safashada badan leh kulankan El Clasico waana Sergio Ramos kabtanka hore kooxda Real Madrid isagoo saftay kulankan tiraba 45 jeer. waxaa ku soo xigay Lionel Messi oo isna ku horimid kooxda Real Madrid 44 goor. waxaanu ku lari doonaa ciyaartooyga ugu goolasho badan leh kulankan El Clasico ayaa kala waaye Lionel Messi oo kooxda Real Madrid shabaqeeda soo taabtay tiraba 26 jeer halka Cristiano Ronaldo uu 18 gool ka dhaliyay kooxda Barcelona. haddii markan aynu eegno guushii ugu weyneed ee Real Madrid ka gaadhay Barcelona waxay dhacday sanadii 1943 bishii 19 kulanka tirsanaa Copa del Rey markaas oo Real Madrid kaga adkaatay Barcelona 11 gool iyo gool. asaahate kulankan muran badan ayaa ka taagan iyadoo waaga uu ka talinayay dalka Isbaanishka kaligii taliyay General Franco oo aad u necbaa gobolka Catalonia ee Barcelona ka soo jeedo. waxaanay ku anducanayeen taageerayaasha Barcelona inuu ciyaartan soo farageliyay uguna hanjabay ciyaartooyda Barcelona haddii ay isdhiibi waayaan kulankan inuu dhammaantood madaxa ka jaraya. asaahate waxaan u soo qaatay natiijadan waa natiijo rasmi ka ah xidhiidhka kubadda cagta ee Isbaanishka. waxaan si aad ula yaabaa sababta taageerayaasha Barcelona uga caroodeen natiijadan oo dhacday 77 sano ka hor iyaga oo sanadihii ugu dambeeyay kaga badinayay Real Madrid 6-4 intaba. guushii ugu weyneed ee Barcelona ka gaadhay Real Madrid waxa ay dhacday sanadii 1950 bishii 9 markaas oo Real Madrid lagaga adkaaday 7-2. si guud waxay Real Madrid kaga adkaatay Barcelona goolal gaadhay 5 iyo wax ka badan tiraba 5 jeer halka ay Barcelona kaga adkaatay goolasho intaas leegay in ka badan 7 goor. recordiska numberska intaan xidhin waxaan ku darayaa Real Madrid labada kooxood waa kooxda aadka u taageertay inay Barcelona ciyaartoy ka soo gadato iyadoo oo tiraba 17 ciyaartoy si toos ah uga soo wareegtay Barcelona halka Barcelona 6 ciyaartoy oo kaliya ay ka soo gadatay Real Madrid. markan kana waxaan isbarbar dhigi doonaa labada kooxood keebaa taageerayaal badan waxaan arintaas ku cadaan karaysaa inuu inagoo isbarbar dhignaa numberska labadan kooxood ku haystaan iyo faniska flowriska uga ah baraha bulshada ku ugu waaweyn anigoo ka soo qaatay 4 Instagram, Facebook, Twitter iyo YouTube. aynu ka horreynaa Instagram-ka ee Real Madrid waxa followers waa 105 milyan oo ruux halka ay Barcelona ku taxan yihiin 101 milyan oo qof.
haddii aan ku xigsino Twitterka Real Madrid waxa followers waa 38 milyan oo qof halka Barcelona page-keeda ay ku taxan yihiin 38.4 milyan oo qof page-ka labadan kooxood Facebook ku leeyihiin haddii ay markan u guda galno Real Madrid waxa ku taxan 112 milyan oo qof halka ay Barcelona followers yihiin 103 milyan oo ruux YouTube-ka ama website-ka casay aniga igu baxdo waxa subscribers uga Real Madrid 6 milyan 830 kun oo qof halka Barcelona subscribers-keedu ay gaarayaan 12 milyan iyo 500 kun oo ruux numberskan ku soo sheegay isku soo geyso waxaana ogaan doontaa labada kooxood mid ka taageerada badan leh su'aasha ku soo afmeeriyay videogeena waxa weeyaan aan mar labaad ku xasuusiyay haddii aad kanalka ku cusub tahay ku soo bir adigoo subscribe taabanaya gambaleelkana furo si uu ku soo gaaro muuqaal waliba markanu sida u soo gelina videoga kanahna like saar si uu dad badan u gaaro kana waa Instagram-kayga iga soo follow garee muuqaalku xigeentan isugu iman doona nabadeey wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh